gabadhana u jeedin wadooyinka caagadaha ka ururisa si ay dib ugu iibiso. Maalin iyadoo shaqadeeda ku jirtay meel qashin waxay maagtay marada inay ka qaado laakiin waxay aragtay inuu nin nool ku dhex jiro. Markii koobaad way isku naxday laakiin xoogaa kadib intay degtay waxay weydiinayeen meesha maxaa u jiiftaa. Wuxuu taagan yahay ma aqaani waxa igu dhacay meeshana waxa ka sameynaya ma ogi xitaa magaciisa waa iloobay. Gabadhu waxay ogaatay midkaan inay xusuusto ka maqan tahay kadib waxay go'aansatay inay gurigeeda u wado. Markii ay keentana dharkii uu watay way ka bedeshay iyadoo u gelisay dhar oo aabaheed lahaay. Xoogaa kadib iyadoo waxa weydiinaa magaceeda iyo waxa ay maalintii qabato. Waxay ku dhahaysaa meeshii ay jiiftaa shaqadeedu ka bilaabataa aakhirkan iyadoo ku soo dhamaatay caagadaha ururiya macnaha. Waxa uu sheegay iyada xitaa inay shaqo tahay wuxuuna ka codsanayaa inuu raaci kale iyo in kale. Waxay ku dhahaysaa haddii aan fiiriyo sida aad u labisneed marka hore waxaan u maleynayaa shaqadan inay ku anfici doonin. Laakiin midkaan hadalkaas ma yeelayay maalintii labaadba iyadoo la howlgalay. Waxay taagan tahay ma u maleynin shaqadan inay laba qof ku fiican tahay hadda ka waran waqti yar caagado badan ku soo aruurinay. Isaguna waxa ku dhahaa waxaan dareemaa dareen ah inaan ku qanacsanayn noloshii hore aan ku noolaay. Waqti yar oo ay ku jireen shaqadana waxay ku guuleysteen inay soo aruuriyaan lacag afar jibaarkeeda lacagtii soo aruuri jirtay midaan. Dhinaca kale waxaan arkaynaa midkaan inuu ka soo jeedo qoys lacag leeyahay ayna meel kasta isaga ka raadiyeen. Midaana u jeedin isaga hooyadiis waaye midaan kalena waa saaxiibtiis oo mar dhow guurso rabo. Hooyadu booliska markay wacdo waxay u sheegayaan inay wiilkeedii meel walba ka raadiyeen inay waayeen. Waxaan aragnaa midaan inaysan rabin in isaga la helo ayna hooyada ku dhehaysa iska nasa adiga isaga iska imaan doona midkaas. Laakiin midaan hooyo waaye waxay dhehaysaa wiilkayga aniga raadsanayo askartaas haddii wax waayeen aniga cunugayga waa soo helaa. Kadib waxay bilaabayaan inay sawiradiisa soo daabacaan ayna darbiyada ku dhajiyaan si qofkii arkay uu soo waco. Maalintii koobaad markii ay soo qoosteen midaan hooyada waxay ku dhahaysaa arrintan aan booliska u deeno. Isla markaasna hooyada taleefankeeda la soo wacaa markii ay qabatana nina wuxuu ku dhahay adiga ma tido qofka raadinayo. Ninka aan raadinaysa wuxuu la socday naag darbi jiif ah waan aqaanaa iyadoo meesha ay ku nooshahay. Dhinaca kalena waxaan aragnaa kuwan inay noqdeen saaxiibo qaali ah laakiin hal mar albaabka lagu soo gargaraaca. Hooyada waxay timaaday midaan gurigeeda kadib markii loo soo tilmaamay waxayna aamini laadahay inay aragtay wiilkeedii ayaanta dhan raadinayday. Isagu ma la hadlayo laakiin iyada waxay weydiinaysaa ma ii jeedid miya hooyada aan ahee. Isaguna maadaama ay xasuustu ka dhuntay arrintan wuu la yaabaa hooyadiisna wuxuu ku dhahay iga raali noqo marwa ma ku aqaani. Kadib hooyadu waxay bilaabaysaa inay uga sheekeedo markii ugu dambeysay uu guriga ka tagayay. Sheeko dheer ay uga sheekeeday hal mar wuxuu iska soo jaraa sax waay waa ku xasuusta adiga hooyadeeda tahay. Hooyada oo arrintaas ku faraxdana waxay weydiinaysaa qof kale ku tusay ma isku dayi kartaa inaad soo xasuusato. Wuxuu taagan yahay midaan waxa xasuusta iyadoo gaari dhinaciisa gadaal ugu ridaysa oo dhehaysa meel fog iga geeysoona dil. Iyada waxay ku dhahaysaa caadi waay arrintan way dhacdaa dadka ay maskaxdooda ka tagtay ayna u soo laabatan waxay ku fikireen arrintaas camal. Hooyadiisa waxay isku dayday inay meesha ka wado laakiin wuxuu ku dhahaa meesha ma ka tagayay ilaa ay raacdo gabadhan. Markii ay isku daydeen inay arrintaas diido wuxuu ku dhahaa gabadhan waa gabadhii ay caawisay anoo caawimaad u baahan meeshaas ayada iga soo badbaadisay. Ugu dambeynna way ka ogolaatay inay gurigeeda geedo laakiin arrintaas ma ku qanacsano. Markay guriga tageen midkaan maskaxdiisa si fiican u soo laabata u maleena. Wuxuu dhahaa qoftan waa xasuustaa waxay rabtay inay idisho kadib ay lacagteeda la wareegto. Isla markaasna midaan waxay bilaabaysaa inay meesha isaga cararto laakiin tartiib u socotaa way soo qaban karaanbe. Kana hooyadiisa wuxuu ku dhahaa walba midaas ma ku qanacsaneen ee waxa raba gabadhan inay guursado. Laakiin hooyadu arrintan ma ogolaanaysa maadaama loo sheegay gabadhan inay darbi jiif tahay. Isaguna wuxuu taagan yahay waa ka xumaay in hadalka ku dhaho laakiin meesha ma sii joogayo waa baxa iyada raaca. Markii ay meesha ka tageen 2 maalin kadib iyagoo arooskooda ka sheekaysanaya hooyadiis u imaanay. Ka u timaaday waxay ku dhahaysaa arrintaada waa ogolaaday mana rabin mar kale inaan ku waayo. Isaguna wuxuu dhahaa mararka qaar wax walba hadaa weedo waxay ku soo xasuusin karaan waxa muhiimka muuqaalku intaas ku ekay leegnosa. soo dhawaada gabadhan gurigeeda waxa ka soo saaray ninkeeda oo dhalay cunugan yarka ah ee wado boorsadeeda inta uu soo bixiyo wuxuu ku dhahaa waa inaad shaqo soo heshaa haddii aad shaqo soo helin guriga ma ku soo laabi kartid waxay u sheegaysaa inaysan isku qaban karin inay ka taxadarto cunugan yarka ah iyo shaqada laakiin isagu sidaas ma ka yeelayay intuu gacanta ka soo qabto dhinaca banaanka u soo jiida isla maalintii xigtana waxaan aragnaa midaan inay qudaar soo gadatay ee wadooyinka ku iibinayso iyadoo shaqadeeda ku jirtana midaan intay kor timaaday waxay ka codsanaysaa inay hal xabad tufaax leh ka gadato laakiin nasiib xumo iyadu waxay ku dhehaysaa anigu ma xiiseynaya alaabtan ay iibinaysid ee wadada ma ii banay kartaa biliis markii ay ka tagtana midaan boorsada midkood tuuga ka xadayo midaan qudaarteeda dhulka ku daadinaysa si ay midkan ugu kufiso hawshaasna way ku soo guuleysatay boorsadina intay ka soo qaaday mid iska leh dib ugu soo celisay waxay weydiisay aniga dartay miyay ugu qasaarisay qudaartii dhan oo aad iibinaysay waxay ku dhehaysaa maadaama aan arkay horteeda wax lagu xadayo inta kaliya aan sameey karin intaan waaye midaana maadaama loo badbaadiyay boorsadeeda waxay go'aansanaydaa inay lacag soo bixido ayna midaan ku abaal mariso lacagta markii ay ku wareejisay waxay ku dhehaysaa waxaan u maleynaa lacagtan inay wax badan ka afici doonto adiga iyo wiilka yarka ah aad wadid intaasna waxay u raacinaysaa maanta boorsadeeda ii badbaadisay haddii aad iga badbaadi lahayn xog badan ay ku jirto wayna iga dhumi lahayd intaas kadibna waxay u rajaynaysaa inay hesho qof u sameeya wax wanaagsan sida iyadoo wax wanaagsan ugu sameeyday isla markii ay ka tagtana midaan waxay bilaabaysaa inay wiilkeeda yarka la sheekaysato iyadoo ku dhehaysa waxa ku gadanaynaa wax badan oo aan hadda gada karin hadalkeeda markii ay dhamaysatana waatana iyadoo aruursanaysa qudaartii intii ka badbaaday waxaan aragnaa inay xala seexatay derbigan maadaama aysan gurigeeda dib ugu laaban karin sababtana wax kale ma ahan ninkeeda wuxuu ka rabaa lacagtii ay maanta soo shaqayso dhan inay u keento midii ay shalay la kulmaysaa intay aragtay u imaanaysaa kadib waxay ku dhehaysaa ka waran dukaanadeeda mid kamid ah haddii aan shaqo ka siiyo iyaduna waatana intay arrintaas ku faraxday waxay bilaabaysaa inay isqanjaroofato iyadoo u malaysay inay riyoonayso
midaan maadaama ay taajiro tahay dukaano badan ay leedahay waxaan aragnaa gabadhii ninkeeda inuu ka shaqeeyo dukaankan uuna madax ka yahay markii uu soo dhaweeyay kadib waxay ku dhehaysaa maalin hore Soomaalidan igu dhihin shaqaalayaashu way igu yar yihiin sidaas darteed waxaan ku keenay gabar kula shaqay doonto isaguna wuxuu go'aansanaa inuu gabadhaas soo fiiriyo laakiin ma ogo gabadhaas inay tahay gabadhii uu guriga ka soo buriyay si ay ugu soo shaqayso iyadoo wiilkeeda u sheegaysa kabahan inay ugadeedo markii uu weynaaday waxay arkaysaa ninkii guriga ka soo buriyay inuu meesha joogo labadooduna markii ay isarkaan meesha waxaa ka dhacayo aamusnaan guud ilaa ay ka timaado midii meesha iska lahayd gabadhay waxay ku dhehaysaa ninkan iska bara waa nin wanaagsan intaasna waxay u raacinaysaa dukaankan ay joogaan inuu isagu maamulo ka yahay boosadu markay aragto labadan inaysan hadleen oo ay aamusan yihiin waxay weydiinayaan labadiina miyaa istaqaaniin midaana waxay ku jawaabaysaa isaga ninkayga uu ahaa jiray waana ninka bannaanka ii soo bixiyey oona igu qasbay inaan qudaarta bannaanka ku iibiyo kadib isaga waxay weydiinayaan arrintaa run miyaa mise been waaye wuxuu taagan yahay arrintaas been waaye sidaas ay kuu sheegteen uma jiraan qoftaana maba aqaaniba laakiin midaan beentiisa ma sii dhegaysanaysa waxay ku dhehaysaa waxaa iska kay dhigaysa nin mas-uul ah oo wanaagsan laakiin waxaa taa way soo baxda maantay intaasna waxay u raacaysay dukaankayga maamulo kaaga dhigay laakiin maamulo dhan ma u qalantid mas-uuliyadna ma qaadi kartid midaana waxay dhehaysaa adiga waa isoo burisay laakiin waxaan helay gabar garabkayga istaagtay oo isisay wax walba aan u baahnaay haddana aniga iyo cunugayga yarka waa isku filannahay hana u malayn inaan gurigaaga dib ugu soo laaban doono ugu dambeyn maamuladu isaga waxay ku dhehaysaa shaqada dhan waa kaa buriyey booskaagana hadda kadib gabadhana la wareegi doonto ku soo dhawaaway ku dhehaysaa bannaanka markaagiyaa la gaaray waa inaad qudaarta bannaanka ku soo iibisaa gabadhay waxay ku dhehaysaa guri dhan ha ka welwelin maamulaha dukaankan wuxuu leeyahay guri khaas ah muuqaalkuna intaasoo ahaya leegnosaar